السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي ولا ليال وايد سلام يا سومالي محمد وولاشين فوسوية دمانتي محمد لي الله يدفايسي الدنيا آخربا إلهي دين قرقارة الدنيا آخربا ولا ليال بالله إذن ليهي دمانتين الله يدين قرقاران ليهي وولاشين فوسوية الحمد لله وشكر لله إلهي باكم مهدسن ونقول نبت قلي وهدر نسو قارسي وقتها كان لما أنت واحد الله مالنت يدين وناك سناتو إلهي إذن كيس مالنت الله يدين وناتيو إلهي إذن كيس ولا عليال إن قدرنا إلهي وقتها هينو وناتيو مالنت الله هينو وناتيو إن شاء الله بإذن الله وقتها إلهي وقت وناك سنة هينو كقدقو ما أنت أحرب ولا عليال إن أنكه الله dadkii Soomaaliyeed iyo Turkiga waxa kala haysta dadkii Soomaaliyeed iyo Turkiga waxa kala haysta anigu hadda waxaan joogaa Sacuudiga laakiin Turkiga waan haddana inaan aado waan rabaa waana maaragtaa waana aan ka warqabay Sembri waan tagaa dhibaatada innagu aynu meel walba dabka isaga dhajinaynana waxaad ogtihiin Soomaaliye waxa idinka daymoon malahan Ilaahay subhanahu wa ta'ala horta waxaan leenahay walaalayaal meel walba Allahayna ku nabadgeliyo dad baa intay xabad ka carareen ba Yurub markay tagtay ama Ameerika tagtay ay ku dishay oo xabadda laftigeeda ay Soomaaliya wasa carareen bay meesha ku heshay wixii alla ku qoray maalintaad xabiya biyo ahayd marna ma seegaysid waa waxaad marna seegayn walaalayaal dhibaatada haysata dadkaas Soomaali la yiraahdo haddaan maanta wax yar idin kaga taataabto wax badan baan ka sheegay oo hadda ka hor YouTube-ka ku jirta inaad dhageysateen oo malaynayo maanta waxa rabaa walaalayaal mid ugu xumayd ugu qaraareyd inaad idin kaga sheego Ilaahay nooma qaraariyo noomana xumeeyo laakiin wallahi waa wax calool xumo leh weeye waa wax calool xumo leh oo dhibaato badan weeye dhibaato gabar hooyo oo Soomaaliyeed ayaa maanta aan wada hadlayno Turkiga ay joogtaa maalin baan waxaan isku aragnay meesha migration-ka tiraadaan maaragtay iqaamada laga qaato waan isku aragnay meesha waa isku barno ciyaal yar ay gabdhay haysataa iyo wiil iyo aruur bay haysataa meeshay maaragtay waxbarasho kala soo aaday halkaanayna ka tagtay markii horeba kabacdi iqaamada uga dhacday meeshii bay iska joogtay aruurteedii bay ku haysatay maalinba guri baa laga cayrshaa maalin walba guri baa laga cayriyaa dad baa ku yimid saxmadaada badan waxay tiri cidna iyo ma taqaan cidna iyo ma timaado gabar jiiraanka ay bartaa marmale ii timaado darbiga waxay tiri aniga caruurta ku qaybiyay tiri darbigaas aan nala kugu soo garaaca gaw oskadu yaa waxay yiraahdaan jamaanca aamusayt bayna yiraahdaan bitir dhibaatooyinkaas iyo shaqo la'aanta iyo rafaadkaas oo lagu qabay hadda mid ka xun baaba timidba dad badan baa sida anaga oo kale intaan cararnay oo shilinkaanu haysanay iyo waxaanu haysanay intaan la cararnay baan Turkiga guriga uga soo gadan Soomaaliya oo dhan anagayna la wada mid yihiin waa dhibaatada hadda Turkiga ka bilaabatay oo aan maaragtaa muxuu ahayd aan ka hadalka lahayn oo qofkii hadda Turkiga joogana uu ka soo hadli karaa iqaamadii la qaadanayay waxaad bixinaysaa 2,800 waxaad bixinaysaa leere iqaamadii markaad xareysatay 2 sanaad xareysatay waxa lagu siinayaa sanad baa lagu siinayaa sanad lacagtiisana waa laga cunaya sanad baad xareysanaysaa 6 bilood lacagtood baa laga cunaya 4 bilood baa lagu siinayaa ama 3 bilood anigaana igu dhacday 3 bilood leysii sanadna waa la iga qaaday 3 bilood lacagtood 3 biloodna waa leysii hadda marka ceebta ka weyn oo waxaas oo dhan ka xun baan idin sheegaya oo la yiraahdo waa ka bilaabatay dadkii guriga ka gatay kabtayda maaragtay baa ku dhacday baalay kabtayda maaragtay baa ku dhacday waa mid ayada horta markii hore dib lagu qabay oo ilmihii dadkii guriga ka gatay oo caruurtooda u gatay oo rabay caruurtooda inay ku soo gashadaan meesha ay wax uga bartaan oo ay u joogaan inta guri jaara ay deganaan lahayn inta wax baranayaan
dadkii carruurtii waa loo diiday oo waxa la carruurtii kuma ilmuhu hadduu 17 gaaro kuma gelin kartid kuwa yaryar kuwa haystaa loo diiday iska daa kuwa waaweyn awal kuwa waaweyn baa laga cabnay laakiin kuwa yaryaraan xataa hadda waa loo diiday way soo dhaaftay intaas oo dhan shalay baa hayda madrasad baa la qori jiray ilmaha waa la gelin jiray hadda waxa la yiri dadkii guryaha lahaa waxa la yiri guryihiinii dad u dhiibta oo hadda rabtaan in la idin ijaarta muxuu ahayd adinkana iqaamada ma la idin siinayo waa tan ugu daran oo maxaan meesha ku degay maxaan guriga u iibsaday maxaan lacagtayda ugu qasaariyay waa dhibaatada hadda ugu daran oo la yiri meesha waa ka socotaa iqaamadii dadka la siinay awal bayagoo lagu dhibaayay oo sanooyin iyo shahro qof miskiin oo bil buutay fasaxa bishii fasaxa ahayd la siin ma iqaamadii intaas oo bilood ka bacdi baa la leeyahay waa inuu qof lacag siiyaa waa inuu qofkii loo diidaa waa in iqaamadii saa lagu waayo waa in lacagtii waxaan ku leeyahay dhibaatadii lagu qabay waxa hadda ka badarnaatay dadkii guryaha iibsaday baabar ku dhiban hadda oo dhibaatadoodii bilaabatay gurigaagii xarumatid oo xor waxaadan ugu ahayn hadee marba haddii iqaamadii aadan helaynin marba haddaad jiid ku jirtay marba haddaad jabaanjo ka tahay waa dhibaato adduun wey shaqana aysan meeshii lahayn camal lahayn waxba lahayn waa dhibaato adduun wey marka Soomaalidu waa taqaanaa meel lagu yaaco hurudhugo aanan ka fiirsan xoog baan u naqaanaa maba ka fiirsanaba annaga ordaynaanu duuduub ku galnaaba madax baan ku galnaaba waa dhibaatada ugu weyn oo hadda ka socota wadankaas ka socota marka waxaan leeyahay horta waxa laga fiirsan waxa leeyahay caana aan fiiqsi loo dhamin iyo hadana laga fiirsan baferaaga wax yeelaan oo ku fogaadaan hadda waxa naga haysta waxa way wadankii ilmihii kuma gali karaan ilmihii aad u rabti jaamacadda ilaa ilmo yar oo 2 sano jira jaamacad ma gali karaa waa inaad jaamacadda qortaa guriga waxba kuma tarin waa inaad ilmihii jaamacadda qortaa waa inaad wax weeye waad aragteen dhibaatada naga haysata wadanka iyaguna waa isaga bilaash waa bilaash waana gali karaa waana ka soo bixi karaa marka waxa leeyahay Soomaaliyay meel walbaad ku balaanbasheen waa aragteen hadda waxa ka socota Turkiga caruurihiisa ay ku noqdeen waad aragtaan darajo aan loo hayn waad aragtaan waa dad cunsuriyiin oo waad aragtaan xaaladda ka jirta waxaan leeyahay marka walaalayaal waxa leeyahay tashan waa loo tashadaaye u tashada wadankiina u tashada Ilaahay subhanahu wa ta'ala haydin garansiyo wadankiina ina u tashataa oo dadkiina iyo dhibaataysan iyo caruurihiina ku dhibaataysan meel walba qurba Ilaahay inuu xaq idin garansiyo ragga Soomaaliyeed oo xukunka ama isku haysta ama isku dilayo ama waxa weeye muxuu hayto hadeer hayo waxa weeye hadaad cid wax u taraysaan ama u gargaaraysaa waxa la yiraahdaa xumo waa laga dhintaaye dadkiina ku baabaasan meel walba Kenya awal lagu baabaasan haddana Turkiga baa bilaabatay in lagu baabao sababtoo tahay meel shaqo lahayn meel aan waxaad ku samaysi jirin kii shaqo haysto ilmihiisa meesha ula soo cararay muslimnimo oo rabay guriga inuu ka gato ku haystana dhibaato ku jira ma dhibaato yara waad aragtaa iqaamadii baa la isu diiday muxuu hayto 3 bilood baa nin hal 15 bari fasax lahaa 3 bilood iqaamad ma sugi karaa oo ilmo yar u xamaalanayay hooyo caruur ka soo tagatay 3 bilood ma sugi karto qofkii hadduu guriga meeshii ay ku leeyihiin in lagu ixtiraamo oo dadkii degaan bay ku noqdeen oo ilmahoodii lagu ixtiraamo oo male walaa imtixaan walaa ixtiraam walaa ahad walaa shay waa dhibaatadaas ayaa ka socota wadankii marka bal inta wixii ka duwan wixii garanaya ama hayo Soomaalida Turkiga joogo bal ka soo hadla waa meel waxa weeye waa xaalad kale weeye ilmihii awal la isma soo galin jirin ilaa dadka jaamacad bay ilmahooda rabaan inay u dhigtaan meesha gurigoodana u deganaadaan laakiin ilmo yar ilaa jaamacad laba galiyo 2 sano iyo 5 sano iyo 6 sano iyo 10 sano iyo jire ilmaha jaamacadda gaaray baa la geeyay dugsi sare dhameeyay ayagina waxa la yiri waa marba 17 gaar lama soo galinayo gurigi kuma soo galay gurigi ma ku soo galaya marka waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala walaalayaal Ilaahay inoo yasir dambigeena dambi waarkeena Allah dhaaf meel walba la joogana wallahi dibkeeda ay leedahay u malaynina inay dib yar tahay meel walba la joogana ha u malaynina inay dib yar tahay Ilaahay dambigeena dambi waarkeena ba dhaaf dhamaantiina waxa idin leeyahay war Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu noqono Soomaaliya wadankeena barakaysan oo dhibaatada ay ku dhex jirta iyo kuwa guryaha ku celinaya oo dhibaatada ku ogow
waxaan leeyahay warka kaaftoomayaan laydin habaarina ilaahay subxaanahu wa tacaala masaa'ibihiisa ilaahay ayna ka haya adduun iyo aakhiraba baan leeyahay ilaahay idankiisa bidmillah soomaalina ilaahay qalbigeeda ha soo jeediyo insha allah waana idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu